kulan ay maanta isugu yimaadeen maamulka macallimiinta ardayda waxgaradka iyo mas'uuliyiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Nawawi Balcad ayaa waxa lagu doortay gudoomiyaha guud ee ardayda iskuulka Imaam Nawawi iyadoona xilka gudoomiyaha ardayda laga wareejiyay Abshir Maxamed Buuwe oo waqtigii uu ka idlaaday kadib doorasho ka dhacday gudaha iskuulka Imaam Nawawi ayaa waxa gudoomiyaha ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Nawawi Balcad loo doortay Yusuf Maxamuud Xuseen halka gudoomiye ku-xigeenka loo doortay Saacid Xasan Cali oo labaduba u tartamayay xilalka gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa Ustaad Mawlid Cali Islaaw maamulka ku-xigeenka koowaad ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Nawawi oo ugu horeen goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyay gudoomiyihii hore ee ardayda iskuulka Imaam Nawawi shaqooyinkii muhiimka u ahaa iskuulka isagoona dhinaca kale u ambaliyay gudoomiyaha cusub ee ardayda Imaam Nawawi Balcad waxa aad u mahadsan ardayda maanta ka qayb galaysa doorashada oo runtii dooranaysa sanadkan 2018-2019 dadkii matali lahaa ardayda maxaa la yiraahdaa dugsiga Imaam Nawawi anoo ku hadlayo magaca maamulka iyo macallimiinta waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in aan qabanno doorasho oo runtii cadaalad ku dhisan sida ka muuqata aad arkaysaan ardayda meesha fadhisa waxaan laga soo xulay dhammaan fasalada uu ka kooban yahay dugsiga Imaam Nawawi intaasi kadib qaar ka mid ah ardaydii ka qayb gashay doorashada ayaa u ambaliyay gudoomiyaha cusub ee ardayda iskuulka Imaam Nawawi iyo ku-xigeenkiisa oo doorashadan ku guuleystay secondary school ay ku guuleysteen Yusuf Maxamed Xuseen iyo Saacid Cali Xasan oo ku tartamay la tartamay wiilasha kale fasalada kale ee la socda waxayna ugu adkaadeen idinkoo codkiina siiseen waxaanu hambalyeynaa idinkoo idinkaga turjumaya codkiina oo wada dhiibateen Saacid iyo Yusuf waxaan leeyahay soo dhawaada hambalyo ugu dambeyntiina gudoomiyaha cusub ee ardayda Imaam Nawawi Balcad Yusuf Maxamuud Xuseen iyo ku-xigeenkiisa Saacid Xasan Cali ayaa waxa ay ardayda ka codsadeen in si buuxda ay ula shaqeeyaan iyagoona dhinaca kale ay sheegeen in dhankooda ay waajibkooda ay ka soo bixi doonaan u faraxsanahay doorashada aad tooradeen waxa intaas kadib doorashada aad toorateen macallaaye waxa idin qaban doonaa Ilaahay kaalsiyo biidnillaahi al-kariim tartamadii iskuulka Imaam Nawawi ka soo jireen sida tartamadii macallaaye gruubada iyo kuwii fasalada sidii macallaaye arday gudoomiye hore iyo sidii wixii ka fiican si ka fiican inaa u qabto ayaa rajeynaa insha Allah ta'ala hadalkii intii codso maasiintan u yacdana waa ardaydan oo kale waxay u codaan saaxiibkan ila jiro oo kale labadaba ku maasiin saaxiibkana si aniga aysan ku maasiin marka hore maanta kadib wax cadaawada idin qabo ma jirto dadka ay codeen wax cadaawada ugu ma qabo maanta kadib waxa naga dhaxay bis oo isku imaadana wada shaqeyn oo ka dhaxaysa aniga gudoomiyaha idinka ugu dambeyntiina gudoomiyihii hore ee ardayda iskuulka Imaam Nawawi Abshir Maxamed Buuwe ayaa soo bandhigay waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu xilka hayay ugu horeen anigu waxaan ahaa gudoomiyihii hore ee sanadkaasi maantana aad baan ugu faraxsanahay xil wareejintaani halkaani lagu sameynayo maxaa yeelay xil wareejintaani horta waa qor isku dhib nin waliba ay xubna ah markaasina ka tirsan iskuulkani Imaam Nawawi Primary and Secondary School way sugaysaa hadaba Soomaaliya waxay tiraahdaa meelaad madax ka tahay mijin leemiska dhigo nin waliba halkan joogo waa madax daban doorashada maanta lagu qabtay hoolka weyn ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Nawawi Balcad ayaa waxa lagu dooranayay gudoomiyaha ardayda Imaam Nawawi iyo ku-xigeenkiisa iyadoona xilalkaasi ay u tartamayeen ilaa iyo 7 arday waxaana ugu dambeyn doorashadaasi ku guuleystay Yusuf Maxamuud Xuseen oo loo doortay gudoomiyaha guud ee ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Nawawi Balcad halka Saacid Xasan Cali oo isna ku guuleystay gudoomiye ku-xigeenka ardayda Imaam Nawawi dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Nawawi Balcad oo kamid ah iskuulada ku yaala degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ah iskuulada ugu firfircoon ee ka howlgala gudaha degmada Balcad iyadoona marar badan ay gashay kaalmaha ugu horeeya ee imtixaanaadka dawliga ah